marabta ganacsiga online ka ah inaad mid ka mira keena aad noqotid kuma xirno ganacsiga online ka ah ama online business ka marka aad sameynaysid in lacag tiro badan aad haysatid ama lacag maalgelin aad ku samaysid oo xoog badan inaad aysan laaziman ahayn aad ku khasbaneen inaad haysatid kaliya waxaad u baahan tahay fikir waxa ka ganacsanaysid ama waxaad iibgeynaysid waxa uu yahay ka ganacsiga online ka waxa keenay maadaama dunida ay noqotay duni internet ah dadka idil gacmahooda ay ku jiraan taleefanno ama TV la wada daawanayo internetka lagu wada xirnaaday waxay noqotay in ka ganacsigana fursad oo maxal yiraahdaa banaan ee dadka lala ganacsada ay noqotay qof walba taleefan uu haystaa maadaama qofka xafiis uu joogo ama gurigiisa uu joogo waxa muhiim noqotay in qofkaasi uu target aad ka dhigatid inaad wax ka iibisid waxyaabaha ugu muhiimsan waxa kamid ah keenay fikirkan maadaama dadka boqolkiiba maxal yiraahdaa 30 dadka dunida ku nool internet ay ku wada xidhan yihiin ama taleefano ay wada isticmaalaan marka aad meherad samaysatid ama dukaan aad samaysatid maalinkii inta ku soo booqataa qiyaas ahaan cilcilis 50 ilaa 100 ay u dhaxaynaysaa hatta hadduu dukaankaaga yahay dukaan waxyaabaha agabka yaala ee agab loo wada baahan yahay ay yihiin dadka u fikirayna waxay fikirkooda ku saleeyeen dadka boqolkiiba 30 ka ah internetka uu ku wada xiran taleefanada gacanta ku wada haayo haddaad ka waran aad u iibgeysid waxyaabahan dukaankaaga yaal qasab ma aha marka aad rabtid online business inaad samaysid in dukaan aad lahaatid ama in aad lahaatid maxal yiraahdaa lacag ay haysatid qasab ma inta ugu badan dadka waxay sameeyaan dadka online ka ah waxay sameeyaan ama waxyaabaha online ka ku iibgiya waxay sameeyaan in ay maxal yiraahdaa shay ay dukaan ay tagaan wholesaler ay ka soo sawiraan alaabta kadibna ay maxal yiraahdaa mowqic ama web page u sameeyaan webkan ay maxal yiraahdaa alaabtan ay ku iibgeeyaan alaabta quality-giisa ay ku qoraan maxal yiraahdaa size-ka ay ku qoraan maxal yiraahdaa qiimaha ay ku dul qoraan qofka marka alaabta u baahan oo customer-ka ah wuxuu markiiba asagoo gurigiisa joogo uu arkayaa shayga niyadiisa oo ku taamaysay ku fikiraysay ayuu meesha ka dhax arkaya markiiba online oo ka dalbana maadaama waqtigu uu ku tagay lahaa waqtigu ku soo laaban lahaa waqtigu meesha ku joogi lahaa uusan haynin marka waa ganacsi la fududeeyay customer-ka iyo iibiyaha ee masaalix ay ku wada qabaan markaad iibgeysid ama wax page-kan aad ku wada aruurisid aad gelisid page-kaaga waad u samaysid wax walba oo loo baahan yahay uu rabo qofka customer-ka inuu ka ogaado ay laaziman ay tahay markii aad gelisid kadib adigoo gurigaaga joogo adigoo hawl maalmeedkaaga isaga jiro waxa ku soo wacaya custom ku soo wacaya customadii hore customada waxay ku kala duwan yihiin customadii hore markaad wax kala iibsataan waa kala dhaqaaqaysa laakiin customka number baad ka haysaa dib baad u isticmaali kartaa numberada oo maxal yiraahdaa WhatsApp group ayaa la sameeyaa waad maxal yiraahdaa u invite gareyn kartaa marka ay timaado alaab cusub maxal yiraahdaa kusoo gaarto dadka guulaha ka keenay waxa kamid ah marka internet online ama business online ka laga sheekeynayo ama la soo hadal qaado dadka kamera keenay waxa kamid ah ninkan iska leh Amazon page yiraahdo ama shirkaddan Amazon markiisa ugu horeysay buug ayuu ku bilaabay page-ka ama maxal yiraahdaa electronic mowqiciisa ku soo aruuriyay buugtii ayaa maxal yiraahdaa faa'iido ayuu ka helay faa'iidada markuu ka helay kadib waxa dhacday in uu customer feedback uu ka helay ay tahay buug oo kaliya ku ekaan kanan u baahanahay ku soo dar kanan u baahanahay ku soo dar problemkii ay qabeen oo waqtiga ahaa ayuu ka xaliyay sidoo kale waxa la sheegaa ninkan iska leh Alibaba oo dunida idil maxal yiraahdaa shaamil ku ah wada gaaro alaabta uu iibiyay marka online business-ka waa shaqo furan waa shaqooyinka ugu fudud ee lacag wanaagsan laga sameyn karo waa adigoo meeshaada joogo lacag fiican samee adigoo hawl maalmeedkaaga ku jiro lacag fiican samee qasab ma aha inaan investment iyo lacag buuran aad u baahatid wax walbo aad is leedahay shaygan faa'iido ayuu leeyahay baad gelin kartaa qof baa kaba gelina saysiska kabaha ku dul qoraya kabaha waxa macquul ah inuusan asaga storage uusan u haynin laakiin qof kaleeto uu ka soo qaado waxaad sameyn kartaa inaad tagtid dukaan wholesaler ah oo aad ka soo sawiritid oo kaliya aad tiraahdo maxal yiraahdaa half agreement aad la gashid
oo ah niyahow alaabtan baan iibgeynayaa marka customku waan kuu soo diro ama marka aan customka ka iibiyo customka intaanaan kaga iibinayaa adna intaan iga dhino intaan iga sii waa aad helid kadib alaabtii qofka dukaanlaha ahaa uu iibgeyn waaye oo kaba soo qaad in ay maxal yiraahdaa ay ku dhici gaarto heer ay dhacdo ay gaarto adiga inaad u iibgeysid oo online-ka dartiisa qofkeena alaabtiina u badbaado adna lacag fiican aad ka samayso taas macnaheedu waxa weeyaan waa waxyaabaha annaga hadda aan u naqaano dalaalka oo online lagu saleeyo weeyaan dadka dunida ugu taajirsan qofka saddexaad qofka afraad waxaa ka mid ah qof fikirkaa sameeyey oo maxaa la yiraahdaa dalaalnimo web page intuu ka soo qaaday web page-kiisa intuu geliyay qiimo u sameeyey qiimihii halkan uu ku yaalay maahan qaybo kaleeta ku sameeyey markii customer-ka uu soo wacona halkaa intuu ka soo qaado uu customer-kiina ka iibiyo kuwana waxooda u tuuro asagana percentage-kiisa fikir weeyaan maskax maalka 100 mar buu kaga muhiimsan yahay ama kaga xoolo badan yahay ama kaga guul dhalin og yahay qofka muruq maalka ah adduunyada aan taaganahay online bay noqotay online macnaheedu waxa weeyaan kuma nasiin noolaan kartid muruq maal hadda tahay ku dadaal maskax maal inaad noqoto. Wassalaamu calaykum.